soo dhawaada qaybta labaad ee barnaamijka Gungaar. qaybtan labaad ee barnaamijka Gungaar waxaan ku dul istaagi doonaa hababka ay dilalka u sameeyaan iyo sida u shaqeeyaan kooxaha wax dhagre ee dilalka geysta. Maxamed Xaaji Ilka Case waxa uu barnaamijka Gungaar u sharaxayaa waxay yihiin kooxda u yaqaanaan amniyaadka ee ka shaqeysa dilalka dhagarta ah ee lala beegsado muwaadiniinta Soomaaliyeed. horta ninka amniga shaqadiisa waxa waaye koowaad inuu horta dhulka yaqaan oo dhulka duusan aqoon waxba ma sameyn karo degmada isagoo ku howlgala inuu ka sakaro horta hadii la soo bursado inuu iska difaaci karo isagoo luqluqeena oo ka dhax bixi karo tababar iyo wax ka dib. Maxamed waxa uu sidoo kale barnaamijka u sheegay hababka ay wax u saamiyaan iyo sida ay wax u gaadaan. anaga kadib waxaan la dhijirin hebel asoo galay daba dhigta anaga aan sheegin xiliga la kici doono laakiin surveillance oo camera taas oo daba kici jir markii la soo oo anaga report maalin walba gudbi jir meeshu tag markii anaga nala la boodi jir. dadka kamid ah kooxdan dhagrayaasha ay wax dila waxay isticmaalaan telefoonada ay u yaqaanaan kuwa shaqo. waxaa sidoo kale jira habab ay u kaydsadaan telefoonada ay kamid tahay inay ku qortaan biyoolaha dhakhtarka iyo wixii la mid ah si aan loogu mashquulin telefoonada u kaydsan. barad marka saf gareysana in la sii raaciyo magacyo kaytalo hebel biyoole ninka biyaha keen hebel barf professor hebel taytaladaas yani waxay fududeynaysaa hadii sardoon kale uu ku qabto inaysan dhiis ku dhicin doctorka iyo waxa doctor balaamij ku saf gareysan u dhaha laakiin hadii xasan ama cadda kaliya ku qoran tahay kor ama arab kaliya oo qofka qaadanaya mobilka waa inay maxduud ahaadaan simkaarkaas qofku wato waxa laga soo qof inay ku saf gareysan tahay iyada dambe oo dadka shaqada kaga dhaxaysa bis laga wacay waa mamnuuc lambarkaas qofka laga waco dadka shaqada ka leeyahay bisa yaqaan dad minis diilad damiyo meel ka raadiya male hadii la qabto xataa lambarka la bedelna meel qof ka raadisid male wax walba atay xataa. Maxamed Ilka Case waxa uu sheegay in hawshooda aysan ahayn bastooladley oo kaliya balse ay bambooyin tuuraan wuxuuna aaminsan yahay in jugta bambooyinka oo laga maqlayo meelo fog ay ka saameyn badan tahay dilalka isagoona ku doodaya inuu isagu yahay qabiir marka loo eego habka uu tuuro bambada oo aan la ogaan karin ilaa ay qaraxdo. afwan hadii la telefon waxa kala baxay ganjada ciyaalka hore waxay sameeyeen jireen mugtaga ku tuuri jireen askarta ama wadadka meel ama xidhawaan ama guri ku tuuri jireen ciidan duuya markii jaanas wuxuu leeyahay markii ku soo dhacdo uu arko ama tashta uu maqlo jaanas ajar uu fadhiisana oo jifan kar qofka haduu jiftana inta ku soo daasiyo waxa baa marka hal raba tashta inay gacanta ay ku soo dhacdo markii ku imaanayso maraysan qofka jaanas lahayn macna. bamba tuurku ugu halisanaa uu sheegtay inuu sameeyay waxa kamid ah bamba uu ku tuuray meel la isugu yimaado Xamar Jajab halkaas oo uu sheegay inuu gudaha u galay kuna dhuftay laba bam gacmeed. waxa aad ugu sameeyay qolooyin oo Xamar Jajab shiishad ku cawi jireen oo BS ah jireen Xamar Jajab taandhow waxaan filaa sanadkii inuu ahaa 17 16 dhamaadkiisa ama waa caawin qisas Xamar Jajab قتل سرعة كدم به قرية كم رقامة يعني قرية للدمي إذا عدى ولا شيء مركز وهذا ذلك أبتع ها قرية أوقل خلق أوقل مقدوي ها خلق شيء شذي عواين قبله بيسيو موتوين بلانكو يالله لو واحد بان وطي كل يين أخاف إلى قلاية من المركز وأي كل يجي وقالي ما بدنا استدل عنين مشاس شغلها وين كرت إن الدعوة لما يردي أصبح واين شغلنا ولا سؤال علنا كل يجي قال لي وأقول سؤالنا تلفون كهدبني كل يجي وكابرهنا sidii ku dhacday markii halkan waa qolkii ay dhalinyaradu ku sugayeen banooniga kuna ciyaarayeen laadhuuda oo Maxamed Xaaji Ilka Case ugu soo galay kuna dhuftay laba bam gacmeed kuwan waa qayb kamid ah astaamihii bam gacmeedka uu qolka ku dhuftay Maxamed Xaaji mid kamid ah dhalinyaradii waqtiga ku sugnaa qolka ayaa noo sharaxaya wixii halkaas ka dhacay iyo waxay qabanayeen. maalinkaas waxay u dhaceen anaka banooniyan sugeynay inaan fiirsano laadhuuga mobilka wada dheeleynay nalka naga dansanay irida nala soo galay irida markii nala soo galay bamba nala soo dhiibay bambadii waa ka tibtay mid kale naloogu soo celiyay tiya qaraxday la wiil waa ku dhintay wiil kale waa ku dhaawacmay mid kale shabaq ku noqday mid kale waa ku jabay aniga fiirra galay saasay wax u dhaceen
marka qiyaastii meeqa dhalinyaro ahayd waxaan ahayn 9 ahayn wax dawladdu shaqeeyay ku jira wax dawladdu u shaqeeyay wax la shaqeeyay midna naguma jirin waxaan shacab ciyaal iska xaafadeeda aan balooniga sugeen maxaa u maleynaysaa in la bartilmaameeyo ma garanayo ilaa hadda wallaahi ma aqaan maxamed xaajiilka xase waxa uu sheegay in bambatuurka lagula xisaabtamay inay keenaan gaajada bamka taasoo ah caddayn uu ka rabo qofka soo diray wuxuuna ku doodayaa inay tahay taasi qayb ka mid ah isla xisaabtanka bambatuurka maya dhalinyarada haddaysan expert qofka duusan expert ahayn gaajada ma bal rabo in la tuuro gaajada waxa la rabaa markaa soo tuurtid sideeda ay tahay fartiga soo saarta laga rabo amiirka aan macna hadii kale waxa laga yaabaa in meel kuwaasoo tuura dhihi karta waxyaabaha accountability ka mid tahay ina bamka soo tuurto waxa cadayna gaajada ay keenayaan meesha san kugu sugan maxamed xaajiilka xase waxa uu barnaamijka gungaar u sharaxaya waxa asaasiga waa si ay wax u dilaan isagoo waliba sharaxaya qofka aan hubaysnayn habka ay u dilaan taasoo qofkii darso wax ka baran karo una kordhinaysa feejignaan iyo inuu isagoo aan hubaysan samayn karo iska caabin dadka markii cabaar ay ku dhex jiraan hawsha expert ay noqdaan balaw ma u baahan kaliis oo gal kara qofka kale wuxuu dhaabis dadka yeelaan anagu faatixinkan qofka soo kala xirtay maxal jir bas kolada la soo kala xirtay inta hadafka loo soo laabto hadafkan uu fadhiyo haduu si jeedo ama horta waxa isku dayaysa mar walba inaadan wajiga ugu imaanin oo wax walba dhici karo wajiga oo fakan kara adoo dhan waxa ku filan marka soo inuu hal mar ku istaago hadafku waa labeynay inta ku dhufan oo ordayay aawa uu noqon ninka marka inuu si jeedo ama inta ugu imaa ama isagoo ugu imaan heshidaad isku day laakiin hadii ay dhacdo inuu darbi madax kul jir sideeda amal hada meel ka dambeys laga gaadi kara ma qofka intuu ku soo socdo waxa laga rabaa 3 talaabo marka uu yaraa marka la soo jirtid inaad ku soo bilowdo taxbada marka maxaa laga wadaa marka xataa adu taagan yahay 3 talaabo inaad soo jirtid hadii wajiga ugu hor imaanaysid inaadan la soo raasin madaxiisa oo ku dagaalama kara qofka naafeen alla marka ina qofka aad dhigin kartid horta meelaha lacag ka saari kartid marka ku dhaco madax markaas lagu baashaala kor laakiin waxa isku day hadafkeen la dhigo horta marka qofkaas ku soo weerar isaga dhanba wuxuu ku filan hal mar inaa u istaagto maxamed ilka xase waxa uu kaloo sheegay in qofka dilaaga ay qasab ku tahay inuusan ku laalaaban goobta uu wax ka samaynayo falka ka hor taasina ay tahay cidda qabanaysa kooxda saaminta ama istikhbaaraadka u yaqaanaan waxa mamnuuca adoo nin ikhtiyaal rabo inaad meeshaas ku laalaabatid dharkaaga awoodo xasdan nin anteena u hor saaran marka aad soo bixisid oo hadafka aad soo aadaysid waa mar adiga aad u soo diyaar garowday maxamed xaaji waxa uu ku doodayaa in qofka bastoolada haysta uu la mid yahay qof aan hubaysnayn haddii uusan diyaarsanayn oo feejignaan uusan qabin wuxuuna sharaxayaa hababka aysan suuragal u ahayn in loo bareero qof bastoolad wata haddii ay ku arkaan qof hubaysan habka asaa kala aadana qofka hadduu bastoolad ku hubaysan wali wuu yeelaa yani gaar ahaan qofka hadduusan digtoonin lahayn waxaa laga yaabaa bastoolada in caadi isag u koob gareysneen amaanku san u furneen caadi isag wato waxa uu tartamo markaas soo baskool laana amal waa laakiin markii qofka isaga intuu waxay u koob gareysan amaanku u furin dubahan uu dhigay ama dubii uu ka ururin uu sameeyay wala ka ururin hadda ka ururin waa iyadoo dubaha ku dhigan amal lamagti maxamed xaaji waxa uu ku doodayaa in qofkii 1 sano ama 2 sano wax soo dilayay ay ku adag tahay inuu wajaho qof hubaysan balse qof sidiisa oo kale waqti dheer wax soo dilayay ay u fudud tahay taasoo muujinaysa sida maxamed uga baxay xayndaabkii dadka caadiga isagoo isku arka qabiir ku takhasusay wax dilka yani jaanisi waxa la qofka aad kula hirdama kartid oo qofka markii isaga soo socdo adoo dhan waxa ku filan inaad inta wabstido aad dhahdidno kadibna meesha u banaysid hadafku uu qalcado markaas biswa hadafka mar walba dhaqdhaqaaq aad qofkaas usan ku ogeyn asamaysid uu qalcay illa ma qofka inuu ahaado qof degan oo wax badan soo ikhtiyaale inuu ahaado kula dagaalamo waa goonitas laakiin qof 1 sano 2 sano wax dilay ma sameyn karkaas waa maxay dil ama ikhtiyaalaad waxay u yaqaanaan waxa uu maxamed xaaji ahaa dilaaga ugu weynaa muqdisho oo ay soo qabteen booliska gobolka banaadir sheegtay in dilkoodu yahay gaadmo isagoo aaminsan haddii aad weerarto qof iska kaa jira ay noqonayso dagaal ku xiran qof iyo kartidiis taasna aysan ahayn shaqadooda waxa qasab qofkaas maankiisa wax yar in la dooriyo wax yar in la dooriyo
حتى نين إسي وكشكينا حتى الله هردقه إنتو أصدقائي كان يسوقوا قادين كاس يكون عاد اختيارك مر والبو قاد ما دي سن قاد من نقل اختيار ما دقال وا suurtagal ma tahay inay gaadaan qof qori haysta maxaase looga baahan yahay qofka qoriga wata si aan loo gaadin waa kan mar kale maxamed xaaji oo sharaxaya hababka suuragelin kara in la dilo qof hubaysan ninka qoriga wata markaan soo galo ninka qoriga wata aakaha wata waa la kala saaraa hadana yani ninka marka aan la aadi karin oo aaka wata markuu gacanta u ka haysta aakaha أنت أو ماشان ومسترد مسافة قبتان كور الواحد أسوء هست ومرك خفت لا هذه كرم وسوي البوق بسنكرة خوري يسخف كل كذا سوي البوق بسنكرة وحكوا له ماذا خفك مرك يسوي أنتوا أتصو قشطو ساسو هست هذا وصو قشطو على ماذا لكن ساسو قشطو وخوري هو سؤال سي أوكي وا أمرك عوني ست حلقة يا واب حتى هنا أساس أو قوة الجلال أكسرت أما خوري أفكيس ساسي لا يحسب أسي muxuu sameyn karaa markaa uu baad qoriga xaq waa diin in qorigi qofka gacanta uu ku haysto halis waay yaa loo dhawaanin saas duu uu wata geesaha isku firmaya loo dhawaanin laakiin garku uu saaran yahay iska xarakeynay ana xarakeeyo waay baa ka sadoo wuxuu la mid tahay ninkii biskoolada soo qaatay biskool isagoo wata aan dubaha u dhignaan am ka baan urursan iska socdo maxamed xaaji waxa uu sidoo kale muujinayaa inay jiraan fursado lagu gaadi karo qof wata ilaalo isagoo dhinaca kalena sharaxaya caqabadaha jiri kara halka qof dawla socdo waxa waay waxa halis ah inay kala fog yihiin labada qof oo ayaga is wardiinayaan markii uu la hadisanta oo adi madaxda tahay baad nin sarkaal tahay ninkan staafka ah marka is wardiisa ma la soo dhawaan karo oo kala durubtaan oo ninka kala u wardiyay ama laba geesaa kala martaan asaas kula socotaan lama dhawaan karo laakiin markay isla socdaan wali wasidii meelaha ugu badan ee al-shabaab ka faa'iideystaan waxna ku dilaan waa suuqyada masaajidada iyo meelaha xariiriga ah wuxuuna maxamed xaaji aaminsan inay meelahaas yaalaan fursado wax lagu gaadi karo ayna ku badbaadi karaan iyagu markay wax dilaan kadib ugu fiican wax lagu tiyaar karno meel bulsho ah oo dadka ay ku badan yihiin oo qofka intiisa milyan qof ay qabanayaan laakiin wada nadiif ah qof socdo ikhtiyaarkiisa ma fududa horta hooyiisa aan number 1 ah oo qofka hooygu ku hooyanayo in la helo waa imaam masaajid uu ku tukanaa laba ah waa imaam wada uu maray wadooyinka uu badan saddex meelo ku kala lacaan hooygiisa in gudaha loo galo ihtimaal waay huwa uu yaali karo qof la joogi karo oo ma lagu fududa ilaa laga ogaado gudaha qof ay ku noolyihiin laakiin hadiisan hooygiisa nin oo ka soo baxo subaxdii oo kadibna mar walba uu soo baxo sida rag istikhbaaraadka ay sheegaan uu soo baxay ninka wadada soo istaaga bagaaj suuga way fududa oo soo baxo wadada ilaa xaq lugeeya masaafadaas xaq gaara karaaca way fududa laakiin uu soo baxo wadada ku soo baxay ma yaqaan tan uu aadi kara tan uu aadi kara taas waxay ka dhigantaa dadka oo inay baqtiyaan si hal wada isku hayaan ilan saddex deyn hatta saddex wada isma dhigi karaan hal qof ikhtiyaari karo waa dib badanta oo labada kale wal amar walba ku dhalan lahay taada kale qofka wax ikhtiyaar hukum wadan kara maanta dhan culays waa ba inay ku jiraan oo markii hadaf kala arkala soo qaato laakiin iskooldan gashana hebel wadadan ku suga ma waa wax ugu badan dadka ku fashilmaan baxta oo ama qofka loo qabto hada marka aad silaax soo qaadanayso hubka iskooladaada iyo marka ikhtiyaarka galiis wax daqiiqad yar la in ahaadaan daqiiqad yar dumarku waxay qayb ka yihiin kooxaha sameeya dilalka dhagarta waxayna shaqadooda ku sheegeen inay ku kooban tahay qaadista iyo qarinta hubka iyagoo isticmaala bajaajyada dumar in loo helo waa xilliga hore raga qaadan jireen dhalinyarada bacan wax ku qaadan jireen bacdan oo fashion-ta buugta kursaysan am geesaha qaajar raga dal isku fahmay laakiin naa qadad bajaajyada soo batay fursada kale waay bajaaj loo qaadanta badan naagana qaado inta badan bajaajka oo wada waxa lagu fahmi karaa darawalka iyo naagta gabadha waxa u sadeexeeya hal wiil kale oo iyada la saaran ama geeska darawalka saaran bajaajka ka saaran waana fahmi kartaa inta badan gabdhaha qaada waa la heli karaa 30% inay dhalinyaro yihiin ay dadka magaalka u egyihiin laakiin inta badan maamooyin wiilka bajaajka saaran geeska ka saaran foodiisa iyo gabadha hubku wadma islaam banaagta naag xijaaban waay
isagana nin madax weyn oo furan ana isma islahanba islahan macna way jira kartaa gabar iyadan iyo wiilkan iyo laakiin ma badna qof xijaaban waa qofkan oo waxa oo laga heebeysan karo oo hatta askar duu qabto oo la hadli karto marka ay dhaxayaan hawlgallada dilalka ah waxay inta badan shabakada ilkaxaasi isticmaali jireen laba mooto bajaaj kuwaas oo mid ay saaran tahay haweenayda hubka wada halka mootada kalena ay wado dilayaasha kadibna marka uu dilku dhaco waxaa bixi jiray mootada haweenayda wada halka dilayaashuna ay lugayn jireen xoogaa mootada kalena ay indhayn jirtay in la xiriirsanayo yan kale mootooyin la adeegsada ninka oo shaqada hogaaminaya qaa'idka ah mootada lagu leeyahay sawato oo korkaas dheer ku istaaga isaga laba bajaaj socoto bajaajna waxa lagu wadaa maamada hubka wada ama gabar inta badan gabar waxa hubka wada bajaajta kalena waxa saaran dhalinyarada hubka oo hawsha galay labada wiil iyo darawalka marka ma basla socdaan ma eegi marka ana meesh taagan ama ninka anteenada taagan ninka istikhbaarkan oo dhex jiro hay shaqada diyaar oo ninka soo bobsiya maamada loo qeyglaysaa kan loo qoqo dab galaa labada bajaaj waa la isag dhigaaya birta la kala xirna wala kala baxa marka wada deganayaan marka soo cuntaan loo qaso mara xagga nooga imaada noo position kala qaadana marka ninka oo hogaanka wada oo ciidanka wata qaydka amar walba waa inuu arkaa ciidanka soo cunayaan markay baxaan oo inuu joogaa meeshii dadka soo daba kacay u sheegi karaa bajaajyada ay isticmaalaan maxamed xaaji waxa uu sheegay inay qayb ka yihiin hawlgalkooda isla markaana ay wax ka ogyihiin sida ay wax u dhahayaan horta bajaaj oo aan shaqo wax ka ogeyn ma jirto lama saar tasartoodan kala dhacdo ila bajaajka nooc yeelama yaqaan nin biis ma bataqaanid bajaajka hubka saaran always ninka wada waa ninka wax keenay wali dadka hubkooda waa ka dirin ka sadaranta laakiin bajaajlaha dadkan waa la soo raacay maya ما بلسكو أمين بانك بجاجلها مكشكناد واحد واحد ليميت إني هذا يعني خوف كان دي واحد يكون عنوان مين لور عنكره محمد حاج waxa uu sheegay in shuruudaha laga rabo qofka ka mid noqonaya kooxdooda dilalka looga baahan yahay inuu yahay qof aan la aqoonsan karin oo aan soo marin qaybaha kale ee al-shabaab sida xisbada iyo wixii la mid ah amniga waa qof dadka aan aqoonin muhiimadana amniga waa qof aan dadka aqoonin taas maxay ka dhigan tahay horta adiga in maalin xataa qof usan kugu dhigi karin shabaabta usan ku dhigi karin taas inay jirto horta hadii san jirin dhibay leedahay qof xisba aha mujidka am dagaal soo gal jiray ma fogo inta soo geeyo hadii dil la dhaxo qofka waa in hadii madaxtooyo u dhaxmar aan lagu dhigi karin horta waa inuu noocaas u yahay horta sidoo kale waxaa la soo baraa inay bulshada ku milmaan oo ay ku dhaqan noqdaan sida inay dhalinyarada garoomada kula ciyaaraan banooniga iyo wixii la mid ah qofka inuu bulshadaas uu ku nool yahay sida uu egtaa uu ekaado dhalinyarada baloon haday inaan baloon dhili karaa tahay haddii dhalinyarada iskooli aad tahay inaad private ka dhigin kartid haddii saas bulshada in aadan ka duwaneen meesha waa la isku barayaa al-shabaab waxay dhalinyarada ay maran habaabyaan u fasaxaan wax kastoo aysan ogolayn diinteenna ay ugu horrayso daadinta dhiigga muslimka waxaanay hadda soo kordhiyeen inay dhalinyaradooda u fadwoodaan maandooriyo nooc kasta inay isticmaali karaan si ay u dhagraan dadka iyadoo oo laga ilaalin lahaa inaad balwad baratid oo aad sharmooto naqatid oo aad xumaan samaysid iyadoo laga ilaalin lahaa ayadan waxa mubax ku ah si adowga u dhagrisid inaad haddii xashish aad ka dawactid marka nin amni oo sano ka muuqato maya sidoo kale waxa uu maxamed xaaji sheegay inay mamnuuc ka tahay inay ka muuqato sunnada nabiga iyadoo laga rabo inay u labisaan una xiirtaan sida ciyaal ziyaha سؤالان مركا أديك أنت ذاك بحث وقافش لنتد أما إن الناس مركا أو تورو أدي ماذا حاجة صدق وجرين الله جرا فوضى كسرنا مش ملقا يلا حزبك وخوني سوانا فشلنتي حزبك قال محادي حمران كي ماذا حبسه لو قلنا أمريكا وكي مانا قارب بروفو قارب مديو كي ماذا أمنية توقف فشلنتي عنه اسكسو جر جاي اسكسو جاي نظامك حق راعي maxamed waxa uu qabaa in ka mid noqoshada noloshan shabakada wax dhagarta ay tahay mid mugdi ah oo xanuun badan horta amniga nolol cajiib badan waa oo mugdi ah nolol aad mugdi ah xanuunku qofka amniga uu dareemi karo markii saaxiibkiisa la qabto saaxiibkiin uu ahaa qof isaga yaqaana waa dhib badan tahay that's why
qofka haddii aad madiina degan tahay oo mar walba inaad isku aragtaan banaadir waa haddii la soo qabto mar walba wuxuu banaadir ku kulmi jiray ninka ciidanku waa la geeyay banaadir oo dhan la baarayaa ka taqaana raad in lagu helin waa macna muhiimada saas waa raad in lagu helin bal hadduu ku soo qabto xataa jidka saxdo inuu raad ku helin ana banaadir ku kulmi jirnaa ha magacay magaca waxa la xudeyfa ana xudeyfa leebna waxa xaja leedahay ها تقول مجرد بنادر عمري متين طلع عندك أنا نكرت المرقات يلا كاس قدومي واحد كذا قاعد هيرس المركة وحرجت المركة عمري مقال المركة واكنا والدين تدي أسكالات وإحنا زويدي تتكاس الدين تهبل ما بقى غانية هرات نوصل لهن يعني حتى هذا اللي حكومة هذا مللا لقاه يعني لو حكم maxamed xaaji ilka xase waxa uu barnaamijka gungaar u sheegay inuu dilay 2 qof oo saameyn ku lahaa noloshiisa kuwaas oo midna uu ahaa saaxiibkiisa kaliya abiis oo lagu magacaabi jiray baadil caana ka ah xamar jajab iyo nin ay qaraabo yihiin oo gacan ka geystay sii deyntiisa markii kol hore la soo xiray taasoo ka dhigan inuu dilay ninkii soo daayay waxa ugu yaabadna horta 2 nin midna qaraabaan si gudoonahay oo daladaas anaga dhaxayso si hadii loo fiirin aabin saaxiibayeen aday u adkaato waana ka firsan waay nin la dhigi jiray bedel ama baadil saa u taqaana baxbar jabaysan jiray xiliga mooryaanta oo sarkaal ah soonka 2016 ka la dilay abriil lagu soo aadaamay xiliga soonka ma jeclan in dilix adeeraan dhigi jiraan waliye way dhigi waa ka firsan waay marka maade aday saan waxa lagu dilay boolaalay anwa أبي صاحبي أنت اللي نقدر إيدي وكمل أي بقول إيه وضوء حجرت أو ير موضوع لو وصل الله حنا أو كان أو وضوء حمر تاع وزارة ده أنا أقولها كذا شيء كذا شيء موتين مرجرين موتين مش مرجرين مرة حجرت أو هذا السر عيدا فدين جري أنا نقول دين جري قولوا كل جنود كنا بس هنا كان قولوا سلوا درها marka ay maxamed xaaji ilka xase iyo kooxdiisu si dhagar ah wax ku dilaan kadib maxay sameeyaan isaga la faantiisa ayaa sharaxaya waxa xiga dilka kadib horta dadka ma orda markii wax dilaan horta dhil ma lagu orda xaaladda dadka haday dad badan yihiin labada orda waa la orday hada dadka taagan yihiin oo taagnaanaya soconay marka luuqa ku wada gashay afkani bas ala sara xawaareen bas si laga soo doob bixin laakiin dadka ku arkaa ordid dadka isku dirtay qabtaa باش عشان وصعنا لو ويلا انت ما اردن ما قدرت ما اردن انا ودي سك اردن دينك ما اردن لكن markii bugbuug ay maqasho dadka dhan labada ordo miska cilniisa dadka la orday hada joogsan wala joogsan shardiga luuqa kood duusas oo gashay luuqa kood ina adii abxsli xawaareysi kadibna luuqa kala bajaajta taala alaabta iska dhiibay baad hada luuqa qabta wax midilin bay maxsayn من عمبارتو دادك اللهين يا تاغي دمركيو عرورتيو تقويو أبويا هن أنو جرنا حينو تبرقوين يا تاي تبرقوين يا تاي maxamed xaaji ilka xase iyo shabakadiisa oo ka koobnayd 9 qofood kuwaas oo 5 ka mid ah yihiin maqarayaal waxaa la horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya darajadeeda koowaad baaris dheer oo ay sameeyeen hay'adaha baarista ciidanka sida NISA iyo CID ayaa kadib lagu wareejiyay sarayaasha xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida October dabayaaqadeedii ayaa loo dhaadhiciyay xabsiga dhexe ee sarayaasha waxaana uu xafiiska xeer ilaalinta xilligaas isku hawlay baarista ee sarayaasha maxkamadda hortaagan iyo kuwa la shaqeynaya ay soo gudbiyeen xafiiska xeer ilaalinta
bartamihii Noofembar ayay codsadeen xeer ilaalinta in la muddeeyo dhegaysiga kiiska waxaana ay maxkamadaynta eedeysanayaasha isugu jira maqanayaashiyo goobjoogayaasha bilaabatay horaantii Diseembar sanadkii tegay. ugu horrayntii eedeysanayaasha loo haysto ayay u jeediyeen garsoorayaasha waxaanu wax ka weydiiyey gudoomiyaha maxkamadda jiritaanka eedda loo haysto. maxamed xaaji axmed maxamed istaag maxamed waxaa lagu jeediyey eedda aad dhegaysanaysay waxaa lagu haystaa inaad ka tirsan tahay kooxda al-shabaab inaad koox oo qayb fulisa horjooga aad u tahay dilalka aad dhegaysanaysay oo ilaa 3 gaaraya iyo dilal kale inaad fulisaa lagugu eedaynaya waxaa kuu bannaan 3 jawaab midood eeddaas ma gelin eeddaas waa galay iyo doodaan ka qabaa si wax u jira inaad sharaxdo. fadhiga hore inta badan lagu dhageystay markhaatiyaal iyo baarayaashii kiiskan ayaa mar kale dib la isugu soo noqday 16 Diseembar sanadkii tagay. xafiiska oo fursadda dib u dhigista ka faa'iideysanaya ayaa soo diyaariyey shaxda horjooga Ilka Case iyo kooxdii uu u talin jiray kuwaasoo maray xukun cadaaladeed iyo kuwa sugaya in cadaaladda la marsiiyo. gaashaanle Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa noo sharaxaya eedda loo haysto raggan. labadii eedeysanee dilay marxuum Xeefow iyo tilmaamihii ay bixiyeen 3 shakhsi lagu soo qabtay Naasa Hablood iyadoo laga duulayo la raadinayo shakhsigaas aadka muhiimka u ah oo ah Ilka Case. laamaha baaristu waxaa su'aalo laga weydiiyey qofka isaga ka sarreysay ee goobta keentay. canshuur wuxuu bixiyey tilmaan ka dhow labadii tilmaamood ay bixiyeen labada mataqaanaa group ee ka horeysay isaga la soo qabtay. canshuur wuxuu tilmaamay inuu amiir u ahay hagaayay nin la yiraahdo Ilka Case. jenaraal Cabdullaahi Buule Kame xaraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa codsaday in dhammaan eedeysanayaasha la mariyo ciqaabta ay mudan yihiin. dhammaan eedeysanayaasha oo u kala saaran 3 nooc qaar jooga oo ah dilayaal oo ku soo eedeynay 434 iyo 221 qaar maqan oo ayagoo maqana aan dil ku eedeynay kuwaan la wadaagay iyo eedeysanaha 9aad oo isagu ka mid ahaansho iyo sahan kaliya u ahaa laakiin aan fal gacantiisa ku fulin. waxay ka kooban yihiin 9kooda marka laga reebo eedeysanaha 9aad 8 kale dadkii magaaladan dadka ku xasuuqayay ha ugu darnaado eedeysanaha koowaad waxa uu ahaa wax lagu qiyaaso miqyaas lagu qiyaaso halbeeg ma laha dambiyada jariimooyinka ummadda uu ka galay ma jiro waa dilaa arxan dalan waxaa nasiib darro ah hadda ka hor inta la soo qabtay aabbihii oo sarkaal booliiska uu damiintay ma daayeen aabbihiis xataa kabar buu u ahaa hadhowdii uu islaam markii lagu qabto ku damiinanaya xataa aabbihii ma daayeen waayo waxa uu dilay kii soo koriyey gacantii quudinaysay buu dilay. ismaaciil jenaraal ismaaciil wuxuu ahaa kii soo koriyey marka oo gurigiisa uu ku noolaa gacantiisu ku dila sababta uu dilayna waa hal arrin ramadaan baa lagu jiray tiruu tirsanayay dadka uu dilaayo uu ku xisaabtamayay ma ahan insaan caadiga qof lagu tilmaami karo dad buu tirsanayay uu tirada uu dadka dilaayo tiradii baa ka dhimanaatay waxay gaarsiisay inuu dilo adeerkii isaga soo koriyey aabbihiina ma daayeen laakiin wuxuu u daynayay inuu u ahaado kabar uu ku gabado markii la xiro oo soo daaya. waxaa intaas ka daran meel uu dad ku dhaafayo ma lahayn diin uu caabudayo ma jirin masjidka dhexdiisuu ku dilaayay kii masaajid ka soo baxo bannaan ku tugaay. waxaan codsanaynaa in ciqaabta u qolanta lagu xukumo oo dil toogasha. qareennada u doodaya eedeysanayaasha ayaa iyaguna dhinacooda maxkamadda ka codsaday in loo naxariisto ciqaabtooda sharci aan la dhaafsiinin inta ay ogol yihiin. maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanaynaa wax cadeymaha loo haayo oo ah inay ayaga qaraal yihiin oo shabaab yihiin keliya inay loo raaco kaas oo qodobkaas oo looga darayo qodobka 4aad oo tilmaamaya waxyaabaha dembiga fududaay maxkamadda sharafta leh intaas ka codsanayna. 31 Diseembar ee sanadkii tagayay maxkamaddu ka soo saartay go'aan rasmi ah sida warbaahinta u akhriya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal 1
maxamed xaaji axmed 27 jir ah ina faadumo cumar xasan ku dhashay shabeellada hoose 2 saalim saciid maxamed 27 jir ah ina leelo xasan cumar ku dhashay shabeellada hoose 3 axmed maxamed haashim 26 jir ah ina cadeey axmed islow ku dhashay shabeellada hoose 4 sharmaake cumar axmed xuseen 25 jir ah ina sacdiyo maxamed cali ku dhashay hiiraan oo maqane ah 5 axmed faarax iidle 23 jir ah ina faadumo xasan ku dhashay xamar oo maqane ah 6 cabdiraxmaan mustafa cabdulaahi 22 jir ah ina faadumo maxamed shaakuud ku dhashay xamar oo maqane ah 7 ramadaan cabdiraxiin mursal ina muslimo madgafiim ku dhashay baar dheere oo maqane ah 8 cabdinaasir axmed cabduqaadir 27 jir ah ina faadumo maxamed ibraahim ku dhashay xamar oo maqane ah 9 faadumo xuseen cali cadaawe 24 jir ah ina dahabo cumar wehliye ku dhalatay hiiraan kuwaas oo xafiiska xeerdhaalinta ciidamada qalabka sida si wada jir ah ugu soo eedeeyay in ay ka wada tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qayb fulisa dilalka qorshaysan iyo sahminta oo ka howlgasha magaalada muqdisho markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumiintiyada kala ah cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedeysanayaasha koowaad labaad saddexaad iyo afaraad oo goobjooga ka ahaa maxkamadda iyo cadeymaha iyo gungaarka laga soo gudbiyay 5 eedeysane ee maqanayaasha ah 2 qoraallo hore looga qoray xukunsanayaal lagu fuliyay qisaas iyo kuwa xukuman 3 sawirada iyo warqadaha cadeynta dhimashada marxuumiinta sare ku xusan 4 dukumiintiga lahaanshaha mootooyinka ay ugu adeegayeen kooxda al-shabaab eedeysanayaasha labaad oo goobjoog ah iyo 8aad oo maqane ah 5 galdacwadeedka hore looga diyaariyay eedeysanaha koowaad maxamed xaaji axmed 6 moobeelada ay isticmaalayeen eedeysanayaasha labaad iyo 9aad oo ay ku jiraan sawirro ay u dirayeen kooxda al-shabaab markay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeerdhaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedeysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 9ka eedeysane ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1 dembiile shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilka case 2 dembiile shabaab saalim saciid maxamed oo afgarashadiisu tahay salmaan 3 dembiile shabaab axmed maxamed haashim oo afgarashadiisu tahay carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegaysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah 4 dembiile shabaab sharmaake cumar axmed xuseen oo afgarashadiisu tahay ugaaska iyo ganay 5 dembiile shabaab axmed faarax iidle oo afgarashadiisu ay tahay shuuriye iyo madoobe 6 dembiile shabaab cabdiraxmaan mustafa cabdulaahi oo afgarashadiisu ay tahay faarax mooryaanka 7 dembiile shabaab ramadaan cabdiraxiin mursal oo afgarashadiisu tahay saalax oo maqanayaal ah waxay maxkamaddu ku xukuntay ayagoo maqanayaal ah dil toogasho ah 8 dembiile shabaab cabdinaasir axmed cabduqaadir oo afgarashadiisu tahay carabey oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in 9 dembiile shabaab faadumo xuseen cali cadaawe oo magacadeedu afgarashadu yihiin faadumo korneel iyo cosabo oo goobjoog ah waxay maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan wabilaahi tawfiiq guud ahaan barnaamijkeenni gungaar oo ay gacan iga siiyeen cabdulqaadir ciise fu'aad muxyidiin iyo maxamed cabdi caraaye waa naga intaa tan iyo intaan barnaamij midkan lamida ku kulmayno waa bahdii gungaar oo idinleh nabaaddiin iyo nooli kulanta